waa tahay Shavino haddii aan maanta ku dhaho dooro wadan aad dalxiiso aad wadankee jeceshahay inaad ku dalxiisato أنا waxaan jeclaa inaan u dalxiiso Sacuudiga oo xajka tago soo dalxiiso kadib aan soo laabto intaas aan jeclaan lahaa dalxiis dillah tahay Shavino waxaa jiro laba ciyaaryahan oo kubadda cagta aad u xifaaltama taageero fara badan leh adigana waxaa tahay qabiir sport waa dabcan way fahmi karaan labada ciyaaryahan ee xifaaltama waa Cristiano Ronaldo Portugiiska ah iyo Messi oo Argentina ah keebaad qabiir sport maadaama aad tahay taageero badan dunida ku leh baad isleedahay adigoona u fiirinayna shakhsiga aad taageerto taageero marka laga hadlo lama xisaabin karo laakiin haddii la dhaho soo jiidasho iyo ku saameynta baraha bulshada ama qofka ugu taageerayaasha badan waa Cristiano Ronaldo qofna kama qarsana sababtoo Instagram kaliya wuxuu ku leeyahay 300 milyan markii uu dabaaldegayana kadib waxa ku biirtay in ka badan 6 milyan hadda dad Instagram-kiisa booqato maalintii milyuumaad qof ayaa ku soo biira marka Ronaldo waa qofka ugu caansan dunida marka kubadda cagta la dhaho iyo kubad fiican iyo adduunka ugu caansan labay kala tahay haddii la dhaho yaa Bruni fiican dadka dunida jooga 99% waxa aaminsan inay dhahayaan Messi kubad fiican laakiin Ronaldo waa qof faamos wuxuu doona waa ku kasbaday taabida sadii aan kugula kaftamo Shavino maadaama Messi uu taageero uu difaacanaya uu kubad wanaagsan yahay sas ama ka wada kamudi Ronaldo iyo Messi kubadda cagta marka laga hadlana qof walba uu dareemi karaa Messi waa magical dadka kubadda cagta wax badan ka faalooda ama ku dhex jira ama xitaa ciyaartooyda labadooda la soo ciyaartay inta badan way sheegaan Messi wuxuu u eegay xiddi kubadda ku dhashay Ronaldo xiddi kubadda bartay waana laga dareemayaa suu u yahay dhiiran oo mar walba calaamiteynay marka Ronaldo calaamitada wax ka dhigtay Messi no baashan ku dhashay waa tahay waxaa jiro maalmo dunida kuugu farxad badan qofka bini aadanka uu soo maro adiga ma ku soo martay maxaa kuugu farxad badnaa maalintaas aad ku farxday wallahi waxyaabo badan oo farxad oo kiisa iska jiro sida maalinta ahayshid qof aad u jecleed oo kale iyo maalmo badan laakiin ani ahaan midaan tilmaami karo haddii aan qiyaaso waxay ahayd maalinka aan jaamacadda ka qalin jabiyey oo jaamiciya taxliida dadkana Facebook igu hambaliyeen ina jaamacad dhameeyo oo xitaa aan PhD gaarta iska sii jeclaa laakiin mashquulka iska batay waa ku faraxsanaa maalinkan jaamacadda ka qalin jabinay aad taa bedelkeeda maalin dunida kuugu muruga badan ma jirtay maxaad ku murugootay wallahi maalin aan isdhihi karo murugay ku lahayd ma jirto way iska jiri karaan waxyaabo maalintaad xumeenayo laakiin maalin aad u muruga badan oo isoo martay muu malaynaa inay jirto hadda kadibna inay imaato ma rajeynayo sababtoo murugada aadaan u necbahay waa tahay Shavino waqti xaadirkan meesha uu rabo ma gaaray mise waxba u sii dhiman ma gaarin waliba hal taaka ma gaarin waxaan rajeynayaa inaan noqdo qofka ugu saameynta badan Soomaalida baraha bulshada uguna caansan marka hadda taas ka hadlayba miqyaaska aan ka hadlooyo iyo meesha hadda joogo waxa u dhaxayso dhul dheer ku dhawaad 100 kiiloomitir u dhaxayso oo la rabo inaan talaabo ku maro marka meeshaan raba ma gaarin mana u dhawi xitaa dadka markay dhacaan ata waxa dhacaan mihi hadda kadib aan rabaa in aano marka ma soo dhawaanay Shavino haddii aan ku dhaho magaalada Hargeysa iyo magaalada Muqdisho kala dooro yaa dooran lahayd horta Hargeysa wiligii ma tagin laakiin waxa ku leeyahay saaxiibaad fara badan aniga horta hadda iska hadlo Muqdisho ku dhashay wiligiina ma ka bixin ba xitaa goboladan oo Muqdisho hareeraheeda shabeellada oo saleey tagay meel kale wiligii ma tagin xitaa wadan dibadda ma aadin sidaa darteed marka Muqdisho ku noolahay intaas ku soo gaaray iyada dooran lahaa walow aan aad u jeclahay inaan Hargeysa tago dad badan oo saaxiibo ah ku leeyahay oo qofka Hargeysa tago iyo kala kiciyaan ana xitaa inaan magac ka soo helo waa jeclahay sababtoo Hargeysa aniga ahaan beeshkay dad badan hataan 500 kun ku xiran iyo 40 kun ka badan hadaa qiimeeyo 300 kamida Hargeysa joogaan asleeyahay
sababtoo waxaa arkaa reactionka ka bixiyaan waxyaabaha aan soo gudbiyo markaa hargeyso waxyaabo yaroo lidi ku aasheego falcelintooda iyagaa saa'ida weliba waa dadka ugu badan dadka hargeyso jooga ama dadka somaliland jooga waa dadka ugu badan ee comment qora waayo waa ka dareemaya marka yarkaa wax yar sheegtid waraa uga dareemaya commentigaas wax yar ka dhaho commentiyada inta badan kaa qusliya dadka soo qora xagee bay joogaan ma Muqdisho mise waa Hargeysa wallahi Hargeysa joogaan dadkaas waa dad maadle weliba burco dad joogaa jiro oo aad u qosol badan waxa aad soo sheegtay oo comment ka soo bixisay wax ka doon adiga qoslaysiinayo ee sameynayaan marka waxaa laga yaabaa muuqaal aan 2 bil ka hor sheegtay reaction ka soo bixin lahaa in muuqaal caaw soo dhigto oo reaction-keeda ka bixinayo uu kaliya muuqaalka hebel asaas ku soo dhaw ku dhahay marka dadka Hargeysa jooga aad iyo aad Somaliland guud ahaanba dadaa wato aad u taageersanay Shavino haddii aan dhaho dhanka dumarka Shavino ma jecel yahay shakhsi dumar sidiisoo kala caan ah inuu nolosha la wadaago wallahi aniga doorashadeeda ma ani waxaan jeclahay inaan baadiyo ka soo taxabdeeyo sababtoo ah wax kale uma dhahayo baadiyadu asaga kaftamayay qofka markuu caan yahay waliba caanimada u bilaaban tahay iyo markuu aad caan u yahay stresskiisa badan de laba qof oo stress badan isma xamili karaan social media marka wax yar laga yaqaano ama in kugu filan laga yaqaano waxa badan in aad teleefankaaga ka fogaatid in problem familka ka haysta xataa jaanis weysina xalisid in adiga iyo saaxiibta xataa is xalin weysaan problemka uu wata leebis marka qof isagana problem ah anigana problem ah dee waa ku kala tageynaa meeshaas xataa 3 bilood moodo joogi karno marka waxaan jeclaan lahaa qof cool ah degan marka wareeray dhahayo Facebook ku wareertay social media noloshan kala soo gal marka soo dar laa taas macnaheedu ma ka dhax baxsan karnaa in qofka xataa aad guursato aad jecleen in la ogaado noloshaada baraha bulshada waa laga yaabaa marka qara dalxiis oo kale marka la isku joogo kale iyo waxyaabaas laakiin maanta xaaskeyga hadiyad ii keentay inaan Facebook ka dhaho uma maleynayo dadka qaar inay muuqaalka intay save gareystaan xaaskeyga hadiyadiisa aan u dhahayo soo bixiyaan waa ka cabsanaa keenan laakiin ma filanayo ani ahaan ma filanayo Soomaalidu waa dadka ugu farka badan ee soo qabta wax aad hadda ka hor tiri maantana isbedela ku soo qaata waxa laga yaabaa xabada xaaskeyga noqoto inay ku waalan tahay inay hani Facebook hadiyad ugu siiso markaasoo kale waxa waa ciyaaryahankeyga sabab weey haliyo qatan dhina